odagayga Xuseen aroos ugu talagalnaa isla ka dhigno sartaadii sidii ay waxaayeen isida social media laga wado anuga inaad rabtaa inaad dhageystaan soo idin bilaabaya aan ku bilaabo magaca Ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim wax badan ka oran maayo muhiimada aan rabo inaan dhaho waa sidoo aroosku xalay ahaa uu ku bilowday iyo sida aan anigu asamasteexa ahaan oo aroosadii ahayd aan ka aaminsanahay oo aan qabo sidoo ku bilowday suuq badan bay ahayd sidii loo soo agaasimay family and friends oo garab fiican iga siiyay waligay aan hilmaami doonin still now aan aaminsanahay arooskiisa qurux badan ku dhamaaday لأنه ذاتك قارئ أملاً إني سخلدن وكل ما ذي سخلدن أنا يقولون مدمانو أمد إتشعل ببوحدي ماشى صومالي محمد أنتي دبد يدلك بتشوك تبي وحربين إنك قيب يمتقنا مرخانتك أحدان أنا يقول قبر صومالية كسكو قبر فنانة ذان هاي بلشة صومالي مقعبان كلها هاي وحنا نوجه هاي إني آد يتشعليهن أمد الصومالية أنت هنشعلها إنك بدنا يتشعليهن أنت إيتي من يتشعليهن إنك بدنا أنا وانشعلهاي يجون وأوجهين يتشعليهن وحن آدي آد ولي بأنكر اللي قلنا دمان أنتي ماذا شاس قصنيد حالة السوق بنقابسي ماشي عتمي ماشي دقيق وذي هرت بقول أبولا جالس بعد كسينيا طلبات وحن ربي آد نوانو قحمين لما أنتي سووا ذي قلين وحصلنا واجعل وإن aan bulshada dadka kale gabadhaha kale inaan dheerahay ayaan isku arkaa sidii aad xalay igu soo baxdeen oo darabteen arooskayga inaad ka soo qayb gashaan runtiina waa qayb wadnahay kamida ayaa waxa idin leedahay waan idin waa calshan wadnahayga idin dabacsan sidaas quruxda badan aad u soo wada baxdeen dhamaantiin oo wada qurux badnaydeen waan idinkaga mahadcelinayaa oo marrabada xagga qasaar ma taalo waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo oo mahad gaar u celiyo qayb kamida dadkii xalay madashaas joogay dadkaas oo ugu horeeyo familkayga oo dadkii family and friends waliba qaraabadaydi dhamaantood magacan oo soo koobeen familkayga waa familkayga qaraabadii asxaabtii fanaaniintii oo intaas soo casumay runtii si sharaf loo qiimo badan mid walba xaadir soo noqday oo heesa ay soo diyaariyeen oo ay ila garab taagnaayeen aad iyaguna waa familkayga fanaaniintaas waa familkayga oo fanku isaga walaal ah intii fanaaniin meesha xalay joogtay anoo idin kala qaadaynin qof walba wadnahayga boos buu ku leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo intii dibadda ka shaqaysay oo ay kamid yihiin Kabray wiilkan habartoo ahay maxaan ku raahday oo jooga Indonesia hadaan khalday wadankii raali aho oo shaqo badan iyo xoog badan ka geystay habar macaan wiilka habartoo ahay Kabray habar macaan waxaan ku leeyahay thank you so much aad baan ku jeclahay meel aan film baad ka soo baxday runtii waana ogtahay muhiimna maaha inaan sheego waxa qabatay laakiin waad sogtahay qalbigaagu waa ogyahay kayguna waa ogyahay habreer talamaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan fanaaniintii dibadaha ku maqnayd heesa ay soo diyaarisay ay kamid tahay wala maxaan ku dhahaa maama Sahra Ilays maxaa la yiraahdaa dalmaryare sakiyare allahumma musta'an ilaahay rabbiga inta ilaa way dambigooda iga dhaaf dambi tahay laakiin qalbiga waa idinka jecel waa idinka ogahay dhammaan fanaaniintii xalay madashaas ku sugnayd oo aan xabad u kala saaraynin ee dhamaantood xil iska soo saaray inay aniga i farxad geliyaan aniga odaygayga waxa idin sheegayaa inaan qalbigayga aad darslatiin oo aan deeply aan idinka mahadcelinayo waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo family and friends waxaan kaloo ma soo koobi karo ummadii Soomaaliyeed meel walba xalay joogto horta way isku yimaadeen aad baan wili ilaa hadda ku soo celcelinaya aad baan ugu xumaa meesha inay deeqdo weyday laakiin insha Allah badan ku dhigaa warbadan ku dhigaa talo badan ku dhigaa anyway waa idin jecelahay iga raali ahaada hadda idin laaway haatuf liibaan allahum zidi jahash dadkii waa isku dhaxalqalday waa isku dhaxalsanahay anyway dhamaantiin walaalahay aad baad mas fanaaniintii reer Norway dhamaantiin Sweden dhamaan family labada dhinacba familkayga odagayga familkiisa
dhammaantiin dan waxaa idin leenahay waa idin taaganahay waana idin mahadcelinayaa waadna mahadsantihiin I'm very happy waan faraxsanahay as long idinkuna adila faraxsantihiin I love you guys warkiyo koona kombo ku jira hal mid baan rabaa midda kale aan rabaa inaan ku darso xitaa dad badan baa waxay walwalayo islaay gabadha qalbigeeda miyaa wax no siday ay ahayd waa ku qanacsanahay waayo wax walba qadarta Allah ka weyn adigu gooni baad u tashanaysaa ilaahayna gooni buu u tashanayaa marka marnaba wax walba sidii ilaahay kuugu talagalay hadda u dhacdo alxamdulillah ma sharaysto si qurux badan anu waxaan u arkay kaliya ummad Soomaaliyeed oo jecel inay meesha soo buuxsameen oo ay halka yimaadeen oo mid walba rabay inuu marxaanti iyo xaadir ka ahaado walaashood ama fanaanadooda ama gabadhooda oo deema taqaanaa aqal galaysa insha Allah biidnillaahi kariimna mana jecel ma taqaanaa wax negative oo soo qoraa ama social media ama meel Facebook yar ama adu aan waqtigeega ku lumiyo ama indhahayga aan waqti ku siiyo inaan ku fiirsado ama ku aqriyo waxa negative ka waxaan jeclaa inaan iska dhaafiyo alxamdulillah rabbil alamin more aan negative dhageysatid more aan waxun aad indhahayga raadiyaan adigana kuma fiicno dambi bay kugu tahay caafimaad ahaan kuma fiican maskixiyan marka muhiimadan ka hadlay waxay tahay hawada aaminina waxa la idin sheegayo alshan waqti xasiinina xurmo wada ah anaga aroos kalaha aroosadii baan ahaa si wax u dhaceen qof kasta oo meesha joogay hadduu runka sheego wuu og yahay hadalkayga ana meesha la taaganahay qofaan xumaato u qaban ma jirto xumaata meesha ka dhacday oo ahayn Soomaalidiyo farabadatay dadkii shicibku farabatay mooyaane wax kale oo dhibaato dhacday maysan jirin social media has marka waxa idin sheegaya waxa laga sheegay alshan wax runtii muhiim ah ama run may ahayn marxaantu waxa ugu filan intii joogtay iyo aniga oo ah gabadhii aroosaysi marna gabadhii fanaanada ahayd فناد بنكها ما فناد كم أرصد ديوانا إنت صنكوا كذا anyway هذا الكيو كوم بكتيرة وحيد الله ولا وحي نيجاتيفا يوحي حنبا شيطان بأسوناتي وحي وناجا عقلك السليم كا متقانا شرف تبا ووح بن آدم كالله كويسيو مركا الحمد لله رب العالمين أنا وحبي بانهاي تذكر مش جوي حبيبي هاين Soomaalida dadkii jacabka jacaylkooda iyo wanaagooda iyo sharaftooda baa meesha wada deeqweyday aad inay jecel yihiin baan ogaaday ummadda Soomaaliyeed aad baan idin jecelahay hadda kadibna waa ka soo hadli doonaa arintaas iyo in aan ka soo hadlo ama u mahad celiyo dhammaan shakhsi family and friends fanaaniintii kan maqnaa iyo kan jooga qof walba madal qurux badan ina ugu mahad celiyaan raba oo ma taqaan insha Allah way imaan doontaa taasna you will see insha Allah qurux badan fanaaniin haday yihiin cameraman haday yihiin DJ yaashi dhamaantiin margooniya madal qurux badan idin gogli doona aad baa idin jeclaa waad